عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن محكمة وفرنتاي محكمة سرة جمهورية فدرالكا صوماليا قيبت عقابته oo ka kooban 5 garsoore waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 18ka bisha 9aad 2024 u fadhiisanaysa gal dacwadeedka ay sumadiisu tahay 10/2024 ee u dhaxeeya eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud kuna eedeysan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo ay qareeno yihiin Cali Xalane علي محمد جبريل iyo محمد عبد ورسامه midna ku ah qaranka Soomaaliyeed oo matalayo xafiiska qariiqanka guud ee dawladda xafiiska xiraliyaha guud ee dawladda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa maanta insha Allah taala go'aankeedii ku salaysnaa asbaabtii ay dhageysatay fadhigii koowaad ee dacwadan ee howlka kan ka qabsoomay 24kii bishii 8aad 2024 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة سرة جمهورية فدرالك الصومالية مركي أي سقط تدير ودرستي أرجيغا عبشرة أسباب تأذي سنها يرعتين تا قرينة ديس الدفاع درستينا دود أفيدي أي كسو جديد محكمة سرة دالك هورتيدا عبشرة ونحر كيدوها كو إن عبشرة أي سلقوا يهين حرفها يدا فقرة اللباد يقولب كاللبا بقول صدن يلبا حيرك هبك عقابة الصوماليات oo sheegaya in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay markii ay dacwadan qaadaysay ama xukunkeedu ku xadgudbay sharciga ka gaabisay arrimo dacwada muhiim ah oo dhinacyada midkood ama maxkamaddu ay soo jeedisay xukunku aanu ku fadhiyin asbaab sharci ama asbaabta xukunka loo cuskaday aanay ku filayn laba in xukunka maxkamadda rafcaanku uu leeyahay 3 waji oo iskhilaafsan iskana hor imanaya dhanka dabaqada sharciga macnawiga shariicada islaamka iyo madhabka shaafiiciga ee dalkeena looga dhaqmo saddex in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo aan dib u dhageysan wixii maxkamadda gobolka ka dhacay taasoo khilaafsan faqradaha baaca ee faqradda labaad ee qodobka 231 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed afar in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir aanay soo koobin dhacdada iyo qodobada sharci ee uu ku saleysan yahay xukunku saafna ay ku khilaaftay qodobka 121 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed shan in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir lagu dhisay qariino oo cadeynaan toos ahayn male iyo loo qaateen taasoo khilaafsan qodobada 110 163 oo xafiiska xiraalinta ku waajibinayay in si aan shaki maangalay ku jirin ay ugu cadeeyaan dambiga eedeysanaha lix in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir khilaafsan yahay dhammaan afarta madhab ee fuqahaada islaamka faqradda saddexaad qodobka 107 ee dastuurka ku meel kaarga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka toddoba in la waayay cadeyn xukunka lagu dhiso saasirteed ay ahayd in la fuliyo qasaamada ama dhaarta ka dhalata lawska ama tuhunka iyadoo ehelada dhibanaha konton dhaarood la marinayo haday diidaana dhinaca eedeysanaha loo wareejiyo maxkamadda sare markii ay si mug loo daristay jawaab celinta dacwadoogista oo nuxurkeedu yahay in dhammaan arrimaha cabashada saldhigga looga dhigay aanay sharciga waafaqsanayn maxkamadda sare markii ay dul istaagtay daristayna xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee la durayo ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu soo sheegay maxkamadda waxa uu cadaatay kow in qareenada difaacu aanay si cad u iftiimin sida xukunka loogu dhisay arrimaha iskhilaafsan ama isburinaya ee ay ku doodeen in xukunku ku dhisan yahay laba
إن حرفها A B C فقرة اللبات يقول الله بقول صدن يكو حركة عقابته عروم محكمة رفعان كقول كبنادير كواتيين إن يديو لجيسته دمان وحي كدعي محكمة قول كبنادير balse uu ikhtiyaar u siinayo inay sidaas yeeli karto cadeymo cusub qaadi karto marag hore loo dhageystayna dib u dhageysan karto marka uu arrin cusub ka marag furayo maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir iyadoo adeegsanaysa awooddaas ikhtiyaariga ah ayay dacwadan si dhammaystiran dib ugu dhageysatay cadeymo cusub qaaday si ay u gaadho go'aan cadaalada sidaas darteed maxkamaddu ما خلافين فقرة أي قرينة الدفاع عبشروا ذا صليقه ودقان صدح إن سوا فقصا حرف كدا فقرة كوباد قلب كاللواب بقول كوبي لباتن حيرك حق عقاد الصوماليات حكم كمحكمة دار رفعان كقبل كبنادير سعد صو كوبي ضمان دعدوين كالدعوة ده قلب الشرعي آياتها قرآن كا يا حديث حكم كاللواب السي ساس محكمتنا عن خلافين قلب إن حكم كمحكمة دار رفعان قبل كبنادير عن خلافين فقرة الصدحات قلب كبقول يتضبع دستور كميلجار كجمهورية فدرال كصوماليا هي فقرة اللبات قلب كصدحات حركة نظام كقرصور كصوبتها وحكم كقطما أسباب شرعي ومعنقلة شم إن حكم كارو خلافين قلب بقول يتوبن بقول لحدن يصدق حرك حبك عقابتا إذا يسنوهنا في عن شك ما عنقله كجرين تنبق اللوغو عديه إن هيرك عدين عنو شك كجرين شك ما عنقله كجرين عنو معنيه دوحين عدين قبيهان بشك كمران بل سايت هاي عدين محوقن قنعين يا قلبك قفك ما عنقلك كان صار يا سبنا الله أنت كل ريحي كرتا إنه رمايستو سكدوان دليل لذا دعوه ويستا لح إن دودا إن قرينو أو كليا لو هايو إيدي سنة عاني هاي من شرعيقا يدعو ودن وافقسا وايو إن فالدنبيات قريسا هي دعاي إيدي سنة سيد علي قيستي داو علسكسو قاري هوريسي لول عبد عسيس وحقر صوره هورتيسا سيسكيسا وقرتي إيدي سنة سيد علي ساسترتيد إن فالدنبيات دعاي إيدي سنوي هاي قفك فالك قيستي داو علسنا لبناها كسو قاري منه مباهنا إن قرينو لغو عديه تضبا إن مرحوم اللول عبد عسيس قد متي داو عيدبك كسو قاري أو بقول كي بس هاشن شيل كذا الجبي قاري لك أبقى صدحاله شيل كذا شانسك بدبادين من بقول كي وطبن كليها ها تخاطر تيجي عند كوها أيام محكمة رفعان قبل كبنادير كور عديه وأنا تايو عسكرتي إن فلك جويستا يدي مشهد لبناها وحرير توصحي كدحيه سديد إن أرنت الله يدا قصدك أما وجهك في الدنبيات كاللغلي هاي عن مرنا لوسو كريم مرخاتيو ترو بهبا بدناته ما دام عيد عن الله سبحانه وتعالى هين عني وغان كريم وحق قلبك قفك كجرة كاسبدل كذا قصدك أما وجهك الدنبيك اللغلي هاي وحق لوسو كراو كليا إن قفك فلك جيستي قرطو إنه سكس فلك وقلي أما إن لغلا سو دحبحو وفاها كحيران دعضا إذا سنها حبدقن كيسا تلاوينك وقاضي فلك كهر فلك دحديسا فلك كدب قورته فلك جيستي سو فلك وجيستي يا آلده فلك وجيستي إن إذا سنه قرطي إن السجى يوريسي لبنادول عبد العزيز محمد ومرن يسمع دحمري مرن كودو كذا شيء أرين عدد لين كرتي أنتوا عروضي بحي صونا قتي شلال قبي جور هبينا قل كمية جورجا يكون ولايين السجى أوريسي عروتي ذا استوى استعمال الشلال في وسوق قتي مركو فلك جيستنا كبح صدي قوتي يجودهان مقالدي وفلك جيستي هذا ayaa si buuxda u cadeysay inuu falka ku galay si kasa si dhammaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto ilkasa intaas waxa dheer inuu si cad u suureysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa
dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedeysanaha ku heshay inuu geystay dilkaas. 9 qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado kaliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jira tuhun laga qabo inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan. sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayay cidna lagu tuhunsan yahay. taas bedelkeeda waxa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay. sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka. 10 in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihi cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda 2 qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay. xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxaa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn. xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sumadeedu tahay 136 2024 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16 soona baxay 15 bisha 5 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka. xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 wabillahi tawfiiq maxkamaddu waxay xidhan